magacaygu Axmed Xasan Yuusuf waxaan ku dhashay magaalada Burco dugsigayga hoose dhexe waxaan ka baxay Sheekh Cali Cismaan Agisris magaalada Hargeysa dugsigayga sare waxaan ku qaatay Maxamuud Axmed Cali Secondary magaalada Hargeysa jaamacadeedina waxaan ku dhameystay Armas magaalada Hargeysa Faculty of ICT shaqadii ugu horeysay aan qabto waxay ahayd 2011 barwaaqo volunteer organization halkaas oo ahaa tababare macallin qaybaha IT-ga waxaan la shaqeynay 6 bilood waxaan kale oo la soo shaqeeyay Nagada Network NGO on ahaa IT officer 2 sano sidoo kale waxaan la soo shaqeeyay shirkad Sostec oo muqdisho ka dhisan oo Hargeysa branch uga dhigay bixisa website-ka iyo domainada hostinada IT ku shaqeysa waxaan kale la soo shaqeeyay Masna Inc oo iyagana sidoo kale website-ada IT-ga waxyaabo IT-ga ay bixiyaan waxaan kale la soo shaqeeyay shirkad la yiraahdo Amadeus oo systemka tigidhada diyaaradaha laga jaro traffic sida Somaliland oo markaa ay bixinaysay Single Travel Agency oo halkaas la soo shaqeynay 3 sano Lamuraan Technology waxaan aasaasay 2016 bishii August koodii waxa igu dhalisay fikirkan in aan aasaaso shirkadda Lamuraan Technology markaan arkay baahiyaha loo qabo tiknoolajiyada geeska Afrika gaar ahaan Somaliland anigu halkaas markaa aan muddo intaa laga soo shaqeynayay ayay igu dhalatay inaan fikirkan anigu iskayaan u asaasto shirkad isla markaana aan markii hore waxaan ahaa shaqaale laakiin imika waxaan doonayay inaan noqdo loo shaqeeyay alxamdulillah waan ku guuleystay sidaas ay ku hirgashay fikirkayga inaan asaaso shirkadda Lamuraan Technology Lamuraan Technology waxay ka kooban tahay 2 qaybood qayb waa electroniga oo waxaanu bixinaa qaybaha electroniga ay ka mid yihiin laptopnada marka waxaanu aad u iibinaa userka laptopnada Dubai lagu soo isticmaalo oo aan macaamiisha qiimeeyo jaban aan qasino si ay u awoodaan inay baahiyahooda ay ku fulan karaan laptopnada ay technology ay u baahan yihiin waxaan kaloo sameynaa website-ada iyo domainada hosting-ka oo xagga technology-dana waa qaybteena labaad oo priority-ga xoogga aan saarno si ay dadka aan awoodi kareynin in ay shaqo abuuraan si ay website u sameystaan ama technology-da lacag ka mid dhaliyaan marka labada qaybood baan Lamuraan Technology ay qabataa technology waxay u qabataa bulshadeeda in haddii Hargeysa magaalo ka fog ama Puntland ama Soomaaliya ama Ethiopia haddii laga soo codsado Lamuraan Technology service-ka ay qabato delivery waxaan u saarnaa gaari ama diyaarad hadba isaan ku gaarsiin karno marka website-kan waa online waxa weeyaan qofka halkaas ku soo codsanaya payment-iga halkaas ay ku bixinayaan Mastercard-ka marka haddii uu Somaliland joogana waxaan u saarnaa baabuurta service ku bixina delivery ayaan u saarnaa marka waxaan u qabanaa in electronic si fudud ay ku heli karaan Lamuraan Technology website-adana waxaa jira haddii iminka website-ada jira Dubai aan u sameynay shirkadda Dubai waxweyn email-ka noo soo diraya waxaa jira Mareykanka website-ada aan u sameynay shirkado Jarmalka jira marka service-ka aan u qabano bulshada wax weeyaan waa service aad u ballaaran bulshada ugu bushaareynayna in aan u keenay service aad u jaban oo isla markaa ay u heli karaan anytime xilliga naga soo codsadaan sidoo kale hosting iyo domainada unlimitedka $15 baan ka siinayna email aad u soo diri kartaan ama xafiiska aad soo booqan kartaan magaalada Hargeysa marka
aad baan u soo dhaweynaa bulshada ku nool Geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida. Arrinteeda u dambeysay gabagabadii waxaan u soo jeedinayaa gaar ahaan waxaan la hadlayaa dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan Somaliland waxay ka cawdaan shaqo la'aan baa jirta. Dhalinyaradu iyaga iskood wax u maalgashan kara, iyaga iskood u samaysan kara ganacsi, waxaan ganacsiga noqon mid laga xaragoodo. Waxaana jirta fursado badan oo wadkeena ka banaan oo ku abuuran karo dhalinyarada ganacsi. Marka waxaan u soo jeedin lahaa inta dhalinyaradu ku orteena inay noqdaan shaqaale oo ay shirkado iyo muxuu ahaa NGO iyo waxa ay ku diiradooda saareen focuskooda waxa wanaagsan inay noqdaan dad shaqaysta oo mustaqbalkooda noqda loo shaqeeyo. taas muhiimada haddii qofku isku go'an yahay inuu noqdo loo shaqeeyo marnaba kuma haminayo ama kuma riyoonayo ama riyadooda ma noqonayaan inay noqdaan shaqaale. marka waxaan u soo jeedinaa dhalinyarada inay iyagu shaqo allaala shaqada ay ka soo horbaxdo in ay abuurtaan oo ay fikirkooda kusoo dhacaan in iyagu iskood karyoona ha noqdo beero ha noqdo baabuur inay meedhaan yani hamigooda noqon inay kursi ku wareegaan. hadhow kursigaasi marka ganacsi abuuraan ay mustaqbalkooda noqon inay kursi ku wareegaan. laakiin waxaanu kula talinayaa dhalinyarada inay shaqo ay abuurtaan. taasaa fikirkayga ugu dambeeya.